cutub ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka qayb galay howlaha lagu dayactirayo xarunta murtida iyo wacyigelinta ee tiyaatarka qaranka. ugu horeyn wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada Bambeyda oo ka mid ahaa ciidamada howlaha dayactirka ka waday xarunta National Theatre ee magaalada Muqdisho. qaar ka mid ah ciidamada oo la hadlay warbaahinta ayaa muujiyay shucuubtooda ku aadan shaqada ay ka wadaan gudaha xarunta murtida iyo wacyigelinta. intaa kadib Ismaaciil Macalin Cabdullaahi isku duwaha shaqaalaha rayidka ee barnaamijka Isxilqaan ahna agaasimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa ciidamada kula hadlay gudaha xarunta murtida iyo wacyigelinta ee tiyaatarka qaranka, isagoona ciidanka u qaybiyay howlaha shaqo ee la doonayo in ay ka qabtaan gudaha tiyaatarka qaranka. qofkii xanuun madax ku dhaco, qofkii dhabar xanuun ku dhaco, qofkii madax xanuun ku dhaco, qofkii gacmo xanuun ku dhaco, dhaawac soo gaaro waa la daaweynaa. qodobka labaad waa qodobka saddexaad waa isqaybahaynaa. shaqada in la isdardaro lama rabo, shaqada waa la isqaybiyaa marka halkaa laga galo. qaybta koobaad waxay gelayaan kor ayay ii tegayaan, qalab halkaas iga yaalay iga soo qaadayaan, bannaankaasay geynayaan. qaybta labaad waxay tegi doonaan haddii alla ku rura shamiinto hoos taalla ayaa la rabaa meel qoyaan naga taalla inaan xarayno. qaybta saddexaadna waxay aadi doonaan gadaal oo waxaa la qabanayaa gaariga noo soo istaagaya qashin meesha yaa la rabnaa inaan saarno. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane Xasan Cali Maxamed ayaa ciidamada kala qayb qaatay howlaha dayactirka ay ciidamadu ka wadaan gudaha xarunta National Theatre. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa lagu aqoon jiray markay dhibaatada dhacdo inay u gurmadaan, sidii 74tii abaartii daba dheereed waxaa shacabka Soomaaliyeed garab istaagay oo waqti badan ku bixiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. maanta iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay og yihiin oo annagaanu ognahay in qaybihii institutionadii ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed burburkii dhibaato badan soo gaartay ay ka mid tahay tiyaatarkan, loona baahan yahay inaan isxilqaano. wasaaradda gaashaandhigga ayaa ka mid noqotay dhowrkii wasaaradood ee ugu dambeeyay barnaamijka Isxilqaan oo dhawaan uu dhagax dhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxamed Cali Sabriye, Jubbaland TV, magaalada Muqdisho.